waxaan daawadyaal halkani waa shabakada wararka ee Dugaal TV kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida ee xilligan taagan qaybtaana hadduu Rabbi qadar waxaan idinku soo gudbin doonaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe oo dagaal ka dhan ah al-shabaab cilaamiyay xilli uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Axmed Madoobe waxa uu kulamo kala duwan la qaatay xildhibaanada, senatarada iyo wasiirada ka soo jeeda maamulkiisa isagoo ka dalbaday in kaalin weyn ay ka qaataan sidii dib loogu xureyn lahaa deegaanada ka maqan gacanta maamulkiisa ee al-shabaab gacanta ku hayaan. dhanka kale al-shabaab waxa la soo warinayaa in jab xoogan ay ka soo gaartay maamulka Hirshabelle gaar ahaan deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan oo la sheegay in deegaano muhiim u ah al-shabaab ay kala wareegeen ciidamada dawladda iyo kuwa macaawisleyda. xogihii ugu dambeeyay dagaalkaasi ku dhaxmaray al-shabaab iyo ciidamada macaawisleyda oo kaashanaya kuwa dawladda ayaan idin soo gudbin doonaa daawadayaal. xogaha kalena barnaamijkeena waxaa ka mid noqonaya Muuse Biixi oo si kulal uga hadlay hadalkii dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee uu ka sheegay magaalada Washington DC. hadalkaasi waxaa sidoo kale falcelin xoog leh ka dhaliyay siyaasiyiin ka soo jeeda maamulka Somaliland. xogii ugu dambeeyay ee ahaa hadalkaasi iyo sidoo kale siyaasiyiinta sidii uga falceliyeen ayaan saaxiibayaal idin soo gudbin doonaa. balse aan ku bilaabo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo wali ku sugan magaalada Muqdisho ayaa kulan la qaatay xildhibaanada, senatarada iyo wasiirada ka soo jeeda maamulkiisa isagoo ka dalbaday inay kaalin mug leh ka qaataan sidii deegaanada maamulkaasi ee gacanta uu ku haya al-shabaab looga xoreyn lahaa. isagoo ku calaacalay Axmed Madoobe in xitaa caasimadda maamulkiisa muddooyin badan ama sanado badan ay gacanta ku hayaan al-shabaab walina aysan tagi karin maamulkan uu ku shaqeynayo magaalo aan ahayn magaaladii loogu talagalay caasimadda. ujeedka kulanka ayaa ahaa kala warqaadasho iyo dardaaran uu Axmed Madoobe u jeediyay mas'uuliyiinta kala duwan ee Jubbaland ku matala dowladda federaalka Soomaaliya isagoona ku adkeeyay carabka inay si mugle uga qaataan dagaalada uu sheegay in ay ka bilaabayaan deegaanada Jubbooyinka iyo gobolka Gado. waxa uu sheegay in maamulada asaagiisa sida Galmudug iyo Hirshabelle ay deegaanadoodu ka sifeynayaan dagaalamayaasha al-shabaab. waxa uu tilmaamay in maamulada dhanba ay caasimadahoodu ku shaqeynayaan xilli isagoo caasimadiisu ay gacanta ku hayso dagaalamayaasha al-shabaab. kulanka sidoo kale waxa looga hadlay sidii xildhibaanada iyo xubnaha kale ee Jubbaland ku matala dowladda federaalka Soomaaliya ay qoondooyinka ay ku leedahay Jubbaland dowladda Soomaaliya ay si mugle uga soo qaadi lahaayeen isagoona tilmaamaba in ay isku tashadaan ama marka ay isku mowqif noqdaan markii la joogo dowladda federaalka Soomaaliya. Axmed Madoobe ayaa la rumaysan yahay in dagaalkaasi uu ku cilaamiyay aysan daacad ka ahayn xilli uu maamulkaasi xukumayay muddo sanado badan. la sheegayna maamuladii ama madaxweynayaashii ka dambeeyay ee maamulada in deegaanadoodu ay ka sifeynayaan dagaalamayaasha al-shabaab xilli isagu uu yahaba madaxweynaha ugu muddada dheer maamul goboleedyada dalka walina uusan dhaafi karin deegaanada ku teedsan magaalada Kismaayo iyo magaaladaasi oo kaliya maamulkiisa uu ku shaqeynayo xilli gobolka Gado isaguna oo khilaaf uu ka jiro maamulkiisana uusan ku shaqeynaynin. dhanka kale haddii aynu eegno deegaano dhowr ah ayaa al-shabaab laga qabsaday oo ka tirsan gobolka Hiiraan. deegaanadani ayaa ka mid ah Aboorey, Tardo iyo sidoo kale deegaanka Gaadsamo iyo kuwa kale oo la sheegay in al-shabaab ay muhiim u ahaayeen deegaanadaasi. waxaa la soo warinayaa in deegaanadaasi qaarkood ee al-shabaab canshuurta ku qaadi jireen sidoo kalena kuwa qaarna ay wahayd maxkamad oo dadka deegaanka iyo sidoo kale dadka gobolkaasi ay u tagi jireen in maxkamadaha iyo waxyaabaha sharciga ee shabaab looga baahan yahay ay ka soo fushaan. ciidamada dawladda ayaa sheegay in dagaalkani ay ku dileen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab oo ay sheegeen inay aad u badan yihiin xilli al-shabaab deegaanadaasi uu ka socdo howlgallo looga soo horjeedo loogana sifeynayo deegaanada ay ka haystaan gobolka Hiiraan. dhanka kale maamulka Galmudug isna waxaa ka socda howlgallo looga soo jeeda al-shabaab oo ay abaabulayaan qabaa'ilada maamulkaasi dega xilli magaalada Muqdisho shalay laga duuliyay ama ay ka baxeen garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ciidamo aad u tiro badan oo ka wada tirsan ciidamada dawladda sidoo kalena ka mid ah ciidamada kuwa xoogga dalka Haramcad sidoo kalena ciidamada Danab iyo kuwa kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa halkaasi la geeyay magaalada Dhuusamareeb iyadoo la sheegay in looga sii gudbin doono degmada Ceelbuur iyo deegaano hoostaga oo la sheegay in dhawaan la sifeyn doono sida ay sheegeen saraakiisha hogaaminaysa ciidankaasi.
in ciidankaas magaalada Muqdisho laga dhoofiyo ama la markaa magaalada Dhuusamareeb loo kaxeeyo waxa kaalin weyn ka qaatay siyaasiyiin iyo xildhibaano senataro iyo wasiiro ka soo jeeda degmada Ceelbuur iyo deegaano hoostaga oo ay ka mid tahay Ceel Qoxle halka la soo warinayo in deegaanada kale Ceel Dheere oo ka tirsan gobolka Galgaduud iyaguna siyaasiyiintooda iyo xildhibaanadooda iyo sidoo kale xubnaha kale ee ku matala dawladda federaalka Soomaaliya ay qorsheenayaan in ay ciidamo ka daabulaan magaalada Muqdisho iyadoo la qorsheenayo in deegaanadaasi ay ka dejiyaan deegaanadaasi waxa muddooyinkii u dambeeyay ama sanadihii u dambeeyay maamulayay dagaalamayaasha Al-Shabaab الآن iyaga ayaa wali maamulo halka qabaa'ilada qaar ay wali isku dayayaan in ay iska dulqaadaan Al-Shabaab oo ay sheegeen in muddooyinkii la soo dhaafaba deegaanadoodu wax horumar ah aysan samayninba halka deegaanada kale ee xorta ay gacanta dawladda ku jira horumarka iyo sidoo kalena ay sameynayaan dib u kabasho wararkii ugu dambeeyay Dugaal TV-na daawadayaal wanaagsan